muuqaalkii hore aan kaga hadlayay sida lacag looga sameeyo dollarson, komitiyada badankood waxay weydiinayaan hal su'aal oo isku mid ah, taasoo ah sidee lacagta loola baxaa ama sideen ku helayaa lacagtii aan ka shaqaystay. So muuqaalkan waxaa idinku tusi doonaa step by step sida aad lacagta ula bixi lahayd dollarson adigoo isticmaalaya hababka lacag bixinta ee dalkeena sida EVC Plus, eDahab iyo kuwa la midka ah. Marka haddii aad rabto inaad ogaato sida lacagta dollarson loo qaato, fiidiyoga si fiican u daawo ilaa dhammaadka. So dashboardkii haddii aan isla fiirino tusaale ahaan haddii tusaalaha kasoo qaadano total referralskeyga waa 13 qof ayaa wax iibsatay. Inta qof oo soo booqatana waa 457. lacagta aan leeyahayna waa $65. waa total unpaid-ka weli lama siinin lacagtan. haddii lacagtan la siiyo waxay geli doontaa qaybta paid-ka. So waa codsanaynaa ayaga baa la xiriireynaa si lacagtan $65 aan ula baxno. Koley commissionkeyga calaa product wuxuu ahaa $5 haddii 13 qof oo wax iibsata lagu dhiftana waa 65. So hadda waxaan codsanaynaa lacagteeni xaqa u lahaynay. Si aan u codsano waxaan taabanaynaa qaybta marketplace ku qoran tahay. Kadib qaybteeda hoose ee payout baan ku dhufanaysaa. waa codsiga lacag bixinta. halkan waa WhatsApp. waxaan ku qoran haddii aad gaartay xadka lacag bixinta $25 isla markaana waqtiga payout ka dhamaaday balse aan weli helin lacagtaada fadlan nala soo xiriir si aan ku caawino. batankaas baa ku dhufanaysaa. kadib markaa batankaas ku dhufatid WhatsApp-ka waxaa kuu soo bixi doona WhatsApp straight taleefankaada ama computerkaada meesha uu kugu jiro WhatsApp-ka. kadib WhatsApp kooda baa la xiriiraysaa. assalaamu calaykum, waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo in account-gayga uu gaaray xadka lacag bixinta oo fadlan ii soo dira lacagta aan xaqa u lahay. Okay, fariintaas u diray inay soo jawaabaan baan rajeynayaa. team baa customer service bay leeyihiin. way soo jawaabeen. affiliate ID-ga baa la weydiiyey waa u diray waa lambar 6. lacagtii ugu jirta bay ii sheegeen inaan wada baxsanayo in kale. kulli ii soo dira baan ku yidhi. kadib EVC mise hab kale inay igu soo diraan bay weydiiyeen mar kale. EVC Plus igu soo dira baan ku oranayaa. waayo ayada isticmaalaa. So waxaan rajeynayaa inay ii soo jawaabaan. nambarka lagugu soo diraya soo qor bay ii soo qoreen. So nambarkii baa qoraya marka. nambarkii waa 25261. waa u dira nambarkeyga. waxaan rajeynayaa sida u dhaqsiya badan ay u soo diraan. marka daqiiqada kadib waxaan rajeynayaa lacagteeda lii soo diro. actually waa lii soo diray. caddeynteedana waa tanaa message-ka. fariintan bay ii soo raaciyeen. aad bay u mahadsan yihiin tiimka dollarson. qaabkaas baa loola baxaa. haddii aan dashboardkeyga usoo laabto lacagteedii ku jirtay total unpaid-ka way ka baxday. waxaa lii geliyey total paid-ka. that means lacagtaas waa qaatay oo waa lii soo diray. haddii lacag kale aad shaqaysto waxay geli doontaa total unpaid-ka. kadib markii aan codsado oo lacagtaas lii soo diro total paid-ka bay ku darsami doontaa. inaad fahanteen baan rajeynayaa. qaabkaas waxay ahayd qaabka lacagta loogala baxo dollarson. daawashadiina aad baad u mahadsantihiin. next muuqaalka xigo insha allah.